kulanti waana wanaagsan daawadayaal lahantii meel baad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga Soomaali Cable oo idinka imaanaya xaruntiisa wuxuu ku leeyahay magaalada Muqdisho warka inta hada ku jira waxa la socodsiin doontaa anigoo Salma Xaaji Xuseen qodobada waaweyn warkan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah warar kala duwan oo ka soo baxaya dilka taliyaha ciidanka 14 Oktoobar Nuur Farey oo la sheegay inuu toogtay qof hubeysan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda madaxtooyada Soomaaliya oo war ka soo saartay gogashii uu madaxweynaha ku baaqay faafaaheen dheeraad ah oo ka soo baxaysa hoobiyo ku dhacay xaafado shacab ay degan yihiin oo ku taala degmada Boondere daawadayaal qodobadaasi waxay hayeen ku ugu darkoro warkeena hodiyaar garow ayagoo intaas si ka faahfaahsan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank warkii oo fidsan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka taliyihii ciidanka 14 Oktoobar Nuur Farey oo la sheegay inuu toogtay qof hubeysan warkaasi waxa inoo eegaya wariyaheena Cabdixafiid Nuur Bare wiilashaydu madaxda qaranka oo anaga naga sareyso oo anu aan kamid nahay hal dhamaantiin waa in wada jecelna inunkuna waa jeceshin oo hadaadna jecleynina difaacan intaad joogtaan magaciina aniga magaalada qiimo kuma yeelaneen Allah u naxariistay wararka naga soo gaaraya deegaano hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku soo warramaya in taliyihii guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaana sare Nuur Maxamed Gaabow Nuur Farey la toogtay kadib markii sida aan xogaha ku helayno ciidan kamid ah ciidamada uu taliyaha u yahay oo ku dhex jiray askari ka tirsanaa uu toogtay xogaha dheeraad ayaa ka soo baxaya qaabka u dhacay toogashada taliyaha loo geystay laakiin warar hoose oo aanu ka helnay ehelka taliyaha iyo saraakiishii ciidanka xoogga dalka ee ka agdhawaa ayaa ku soo warramaya in toogashada taliyaha oo ka dambeeyay nin la sheegay inuu ciidanka ku dhex jiray oo ilaa ay hadda aan la xaqiijin inuu ahaa askari rasmi ah oo ciidanka u diiwaan gashan iyo inuu ahaa nin ku soo dhex dhuuntay laakiin sidaan xogaha ku helayno ninka toogashada fuliyay ayaa ku hubeysnaa dariska ciidanka iyo hubka ay wateen ciidankii markaasi uu taliyuhu dhex joogay xogaha ayaa tilmaamaya in taliyaha xilligaasi uu askarta ay fayl ugu jireen isla markaana uu la hadlayay isaga oo guwaabinayay si ay u fuliyaan howlgalladooda maalinlaha ah ee uu taliyuhu ku hogaaminayay ciidanka taliya Nuur Farey ayaa ahaa guutada 14 Oktoobar sargaalka hogaaminayay sanadihii la soo dhaafay iyadoo lagu xasuusto dagaaladii ka dhacay Shabeellada Hoose gaar ahaan xorinta degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay kamid tahay Janaale oo Dheegle iyo sidoo kale deegaanada hoostaga degmada Afgooye sida aan xogaha ku helayno agagaarka deegaanka Laanta Buuro oo hoostaga degmada Afgooye ayaa lagu soo warramaya in dhacdada dilka taliyaha ay ka dhacday dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah u xaqiijin dhacdadan geerida ku timid taliyihii guutada 14 Oktoobar Nuur Farey ayaa kamid ahaa saraakiisha ugu fircoon ciidanka xoogga dalka iyadoo guutadan uu hogaaminayana ay ka abuurantay dhacdadii 14 Oktoobar ee ka dhacday isgoyska Zobe iyadoo ciidan iyo shacab gadooday oo markaasi ay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee abaabushay ay ka abuurmeen guutada 14 Oktoobar
oo howlgallo waaweyn ka fuliyay dhowr jeer deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Hoose. Taliya Nuur Faray ayaa lagu xusuustaa weerar ka dhacay degmada Owdheegle oo uu markaasi si geesinimo leh u hogaamiyay ciidankii halkaasi ku sugnaa iyada oo dhowr jeer isaga iyo ciidankiisa ay dhabarka u dhigteen difaaca degmada Owdheegle oo ururka Al-Shabaab u ah ahmiyad gaar ah isla markaana ay dhowr jeer isku dayeen inay degmadaasi qabsadaan ayna jaraan buundada degmada Owdheegle. wixii warar ay ku soo kordhaa waxaanu idinkula socodsiin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha jamhuuriyadda Uganda Mudane Yoweri. booqashada shaqo ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda ku tagay dalka Uganda ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka Al-Shabaab iyadoo labada madaxweyne ay sidoo kale ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka laba geesoodka dhinacyo badan taabanaya ee labada dal ka dhaxeeya. madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay gogashii uu madaxweynaha ku baaqay. warkaasi waxaa mar kale inoo faafahinaya wariyaheena Cabdixafiid Nuur Barre. xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay kulan uu shirgudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isugu yimaadeen hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. kaasi oo hordhac u ahaa baaqii madaxweynaha ee dadaalada lagu mideynayo shacabka Soomaaliyeed si loo laba jibaaro howlgallada lagu cirib tirayo ururka Al-Shabaab. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka ay madaxda ku wadaageen warbixino ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo howlgallada ka socda gobollada kala duwan ee dalka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku bogaadiyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kaalinta hogaamineed ay ka qaadanayaan abaabulka iyo isku dugidda dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka intii uu kulanku socday ay madaxdu ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in loo diyaar garoobo gogosha qaran ee uu dhowaan ku baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. taasi oo ujeedkoodu yahay in la abuuro jawi midnimo oo ku jihaysan la dagaalanka khawaarijta, maadaama ka guulgaarista dagaalkaasi ay noqon doonto bilowga guul qaran oo dalka iyo dadkuba ay ku diirsadaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay isaga oo xusuusan in guulaha waaweyn ee laga gaaray la dagaalanka argagixisada ay ku yimaadeen taageerada hagar la'aanta ah ay shacabka Soomaaliyeed la garab taagan yihiin geesiyaasha xoogga dalka iyo kuwa deegaanka. in mudnaanta koowaad uu siinayo xoojinta midnimada ummadda Soomaaliyeed ee ku wajahan kamira dhalinta halganka dalka looga xoreynayo ururka Al-Shabaab. sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in iyada oo laga ambaqaadayo ujeedadaasi madaxweynaha dalka iyo madaxda maamul goboleedyadu ay isku raaceen in lagu howlgalo niyad sami ay saldhig u tahay tixgelinta talada, tusaalaha iyo taageerada indhaargaradka aqoon-yahanka hogaamiyayaasha siyaasadda iyo guud ahaan bulshada. taasi oo muhiim u ah xaqiijinta hadafka qaran ee ku dhisan in cod iyo cududba loo mideeyo ciribtirka kooxda Al-Shabaab. xafiiska madaxweynaha oo laga sugayay inuu mudeeyo waqtiga la qabanayo gogasha, la iclaamiyo ajandaha iyo dadka ka soo qaybgalaya, isla markaana loo sheego siyaasiyiinta sida loo wajahayo gogashan iyo doorka ay ku leeyihiin. ayaan ilaa iyo hadda war sax ka soo saarin arrintan iyada oo weli ay dul hoganayaan gogasha uu madaxweynuhu ku baaqay su'aalihii ay horey u qabeen siyaasiyiinta doonaya inay qayb ka noqdaan dadaalada xal raadinta Soomaaliya. Cabdixafiid Nuur Barre, telefishinka Somali Cable, Muqdisho. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa hoobiyo ku dhacay xaafado shacab ay degan yihiin oo ku taala degmada Boondere. warkaasi waxaa inoo faafahinaya wariyaheena Ismaaciil Yabrow. hoobiyo aan ka loo kulnay markaan saas u fiirin waxaan arkay laba wiil oo meesha jifto iyo islaantood meesha jifto u darneed caloosh ka soo baxay wiliba banaanka taal caloosheeda. waxaan arkay hoobiyo dhacayo markaan soo kacay saa u fiirin aan ku ordameerihii farmashiyo ku yaal cagti aagii ku dhawaan yaa wax ku noqteen dadkii iyo islaan meesha maraysa 3 qofood wax ku noqteen oo xaafadda. halkan waa xaafadda Busley degmada Boondere ee gobolka Banaadir waxaa ku soo dhacay hoobiyo ka oo geystay khasaare 3 qofood oo dhaawac ah sida goobjoogyaal markuu soo dhacay hoobiyo la hadlay telefishinka Somali Cable ay noo xaqiijiyeen. goobtan oo ah jid cadde
ma jirta khasaare dhimasho ah oo geystay 3 qofood ayaa la sheegay oo dhaawac ah khasaare kale oo dhimasho ah lama sheegin jidcadahan oo ah xaafadda Busley ayuuna ku soo dhacay iyadoo ay ku dhaawacmeen 2 rag ah iyo 1 dumar ah sida goobjoogaha marka ay soo dhacayay hoobiyaha oo la hadlay telefishinka Somali Cable wallahi saaka marka saakan soo kacna hurdada anoo ka soo kacay waxaan arkay hoobiyo dhacayo marka soo kacay saa u fiirina aan ku ordameerihi farmashiyo ku yaal agti aagii ku dhawaan yaa wax ku noqday dadkii iyo islaan meeja maris 3 qofood wax ku noqdeen oo xaafadda 2 yar iyo 2 qof weyn oo dumar ahayd oo suuq u socotay taas weyn u darneed caloosh ka soo baxay waliba banaanka taa caloosheeda dadka xaafadda waxa ka soo baxay marka damlaamaha amniga ayaa ka soo baxay noo yimid oo gargaarka ma yimid hadda jawiga oo waa deganta hadda sida hore xasli waa degan dhanta laakiin qalqal waa laga cabsan hadda wali cabsiga ku jirto ama wax kale soo noqta amal Bonder Yusuf Alkonen waaxda labaad si wacan laantaana joogana hooyaasha ilaa meeqa ahay ilaa 4 xabo way gaarayaan khasaaraha meesha dadku wax ku noqdeen meeqa dhamaayeen 3 qofood xaafadeeda wax ku noqotay aagii 3 qofood aagii wax ku noqotay oo deganna 3 saas wax u jira xaafadihi laakiin meelihii kalaamihii kala doorka ma hayo alxamdulillah intaas ilaahay noogu cekiisiyay dadkii dhaawacmeen waxa loo qaaday isbitaal Banaadir qaar isbitaal Banaadir la qaar digfeer loo kala qaatay sidoo kale shacabka caasimadda Muqdisho ayaa dhawaaqa hoobiyaasha maqlay iyaga oo degmooyinka Boondheere iyo Wardhiigley ay ku soo dhaceen Ismaaciil Ibrahim Xasan telefishinka Somali Cable Muqdisho shacabku waxyeeloobay tiro hoobiyaal ah oo ku dhacay degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir warkaasi waxaa inoo faafahinaysa wariyaheena Nimco Maxudiin Cardoofe meeshaan waxa xigtaana waxa u jeedo hooyo Soomaaliyeed oo meeshaan jifto gacan taagayso baaq soo dhactaa waa kaas u jeedin masbacan ku soo dhacay meesha masbaca ku soo dhacay hoobiyuhu markuu ku soo dhacay deed wad garanay kartaan qofkii oo mata aan u tooghaynin argagax buu noqonaya markuu ku dhacay macalinka madaxa qaarka hore madaxa ka gaarin ilba u sii darnay waliba daawadayaal waxaan kala soo hadlayaa barxadda Wardhiigley goobtan aan sida gaarka ah ugu suganahay waxa ku soo dhacay mid kamid ah hoobiyaashii ee lagu soo tuuray magaalada Muqdisho kuwaas oo tir ahaan gaarayay 3 hoobiye goobtan waxa ay ahayd goob ay ka agdhawaayeen dad halkan ku ganacsanayay sidoo kale goobo waxbarasho uu kamid yahay dugsi Quraan waxaana la sheegay in halkaani ay guud ahaan qasaare ka soo gaaray 5 qofood oo ku dhaawacmay hoobiyihii halkaani ku soo dhacay dadka dhaawacmay waxa kamid ahaa miiskan iga dambeeyay sida aad u jeedaan oo ku ganacsanayo qof kamid ah dadkii halkaani ku dhaawacmay sidoo kale waxa halkaani dhaawac culus uu ka soo gaaray sida naloo sheegay macallin dugsi Quraan ku dhigayay goobtan uu hoobiyaha ku soo dhacay agteeda waxa la sheegay sidoo kale in qasaare kala duwan halkaani uu ku dhashay dadkii halkaani waxyeeladu ku soo gaartay ayaana loo qaaday mid kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho tirada hoobiyaasha ee magaalada Muqdisho ku soo dhacay ayaa la sheegay inay ku kala dhaceen degmada Boondheere degmada aan hadda ku suganahay Warta Nabadda iyo sidoo kale degmada Howlwadaag waxaana jira in hoobiyaashaasi ay geysteen qasaare kala duwan qaar kamid ah dadkii goobjoogayaasha ah oo kula kulanay halkan oo ah barxadda Wardhiigley ayaa nooga warbixiyay dadkii halkaani ee waxyeelada ka soo gaartay iyo sidoo kale dhacdada halkan ka dhacday laba dumar bay ahayd labana rag bay ahayd hiblu ahaa ninka kalena macallin dugsi buu ahaa marka hore noo sharaxsay wax uga dhaceen halkan masbacan ku soo dhacay meesha masbaca ku soo dhacay hoobiyuhu markuu ku soo dhacay deed wad garanay kartaan qofkii oo mata aan u tooghaynin argagax buu noqonaya argagaxaas waa ka dhacay dadkii warta Wardhiigleyna weeyaan Warta Nabadda oo Wardhiigley masaaru 4 qofood baa lagu sheegay hadda meeshiina waa la qaaday dadkii waa la qaaday dhakhtar baa loo dhigay goobta hadda marka aan tagnay ciidanka la soo kala wareegay waana la ka soo ciyay anaga waana la ka soo kaxeeyay waana soo nafteedan soo buusanay waana ka soo baxan waa gartay dadka wax gaareen in macallin dugsi Quraan qayb ka ahaayana loo sheegay bal arinta ka war macallin dugsi baa kamid ahaa macallinku waliba ardadii markay fardambi ka soo laabteen oo macallinka uu ku haray waa yaa macallinka iyo meesha ku dhacay iyo hubka ku dhacay markuu ku dhacay macallinka madaxa qaarka hore madaxa ka gaarin ilba u sii darnay waliba dhaawacyo kale ma aragtay dhaawac kale nin calooshaan baa saa u wareegsanay oo caloosha saa u wareegsan ninka hilibka waa iyo ahaa ninka caloosha saa u dilaacday ninka hilibku ahaa marka maamada kalena maamada weyn aad bay u leeyahay qofka kale dhalinyaradaana dhaawac buu ku sinaaya asoo ma arta firkiyo aad u galay marka saas way u gaareen anagu markan ku soo yacnana waan ilka cish xilligooda soo dhacay aan xagga bataagnaa waa u jeedo meeshaan waxa xigtaana waxa u jeedo hooyo Soomaaliyeed oo meeshaan jifto gacan taagayso baaq soo dhactaa waa kaas u jeedin
marka aad uu qiiro marka ka xumaa walaa 100% meeqa qof la sheegay inay wax gaareen oo meesha anay 4 qof arkay laakiin dad kale wax ma gaarin 4 qof wax gaareen 4 qof inay qabteen ha ka waran maxaa dareen walaahi waa ka xumaa walaahi inkastoo dad badan ku dhintay Soomaaliyeed ee wax ku gaareen ee hooyo ku jirto aad u qiirada marka nimco maxudiin cardo fi Soomaali Cable TV muqdisho aad bay u mahadsan tahay wariyaheena nimco maxudiin cardoofe guud ahaan daawadayaal intaasi hayaan kusoo gabagabeynayna marka TV-ga Soomaali Cable oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhuxul ku leeyahay magaalada muqdisho warka waxaad la socodsiinaysaa anigoo Salma Xaaji Xuseen inta aan kulmi doono wararka war la mid ah idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo